barasaabka gobolka Salel Dr. Axmed Naasir Maxamed Xaashi ayaa saaka kormeer hawleed ku tagay cisbitaalka weyn ee magaalada Saylac. cisbitaalkaasi oo in muddo aba xidhnaa ayaa waxa albaabada loo furay maalintii shalay halkaasi oo lagu soo kordhiyay dhaqaatiir iyo dawooyin cusub. kormeerkan barasaabka ayaa waxa ku weelinayay agaasimaha cisbitaalkaasi mudane Maxamed Tukaale Cali. barasaabka iyo mas'uuliyiinta caafimaadka ee cisbitaalkaasi ayaa waxa ay soo indheeyeen qaybaha uu ka kooban yahay dhakhtarkaasi. intaasi kadib barasaabka gobolka Salel ayaa waxa warbixin ka siiyay habsami socodka hawlaha cisbitaalkaasi agaasimaha cisbitaalka magaalada Saylac Dr. Maxamed Tukaale Cali. cisbitaalkan furlahayn waxaan wasaaradda inoo ballanqaaday inay noo shaqaalayso sanadkan shaqaalihii wasaaradda wixii aan dawo helaynayna waan keennay waxaanu ka soo helaynayna waan keennay cisbitaalkiina kadib baan u furnay wax alla wixii baahi uu qabay aan samayn wuxuu u baahan yahay cisbitaalku dayactir weyn oo guud ahaan laakiin inta dayactirkaa loo sameynayo waxaan si tambareeya usii furanay cisbitaalka si uu shaqeeyo isagoo shaqeynayo wax looga qabto shaqaalihiina imika waxaa la keenay dhakhtar cusub iyo shaqaalada waxaa kaloo isaguna halkaasi ka hadlay Dr. Farax Cabdi Cindi oo ka mid ah mas'uuliyiinta cisbitaalkaasi. anigoo shaqaalihii muddo 5 sano ka shaqeynay halkan muddana oo naga xidhnaa cisbitaalku adeeg la'aan waxa maanta noo suuro galay Ilaahay fadligii waxa noo yimid dhakhtar iyo agaasimihii oo dawooyin iyo qalab yar oo fudud ba soo helay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha khuseeyaanba waxaan ka codsanaynaa wixii naga dhiman. waxaa kaloo isaguna dhankiisa halkaasi hadal kooban ka soo jeediyey maayir ku-xigeenka degmada Saylac mudane Sacad Daahir Cige. wixii taageerka dawladda hoos ahaan diyaar baan u nahay inaan wax ka qabano waayo wax lagu daweyn waa dadkan mas'uulka ka nahay weeyaan wax lagu daweynayaa diyaar baan u nahay mar walba diyaar baan u nahay wax ka qabano wixii caawi aan ka geysan karnaa ka geysano insha Allah taala. gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Salel Dr. Axmed Naasir Maxamed Xaashi waxaanu yidhi cisbitaalku waa cisbitaal baahi weyn loo qabo weeyaan waxaa gobolka qiimo weyn buu leeyahay inaynu furno wasaaradda caafimaadku intii karaankeeda ahayd imanka way soo dhiibtay dawooyinka wasaaradda laga keenay shaqaalaha jooga cisbitaalka inta cusub ee laynoo ballan qaaday wasaaraddu ballan qaaday maahe intii hore ee shaqaalaha inoo ahayd ayaa ka shaqeyn doonta kuwa cusubna way ku kordhi doonaan way dhameystiran yihiin midwife-kii baa ku jira kalkaaliyaashii baa ku jira dhakhtarkii baa inoo jooga waxay naga dhiman ma jiro xagaa waan fiicanay waxa kaliya u baahannahay waxa weeyaan inay shaqaaluhu dadaal sameeyaan guntiga dhiisha iskaga dhigaan waan ogahay lacag kastoo la siiyo in aanay qiimaheeda gaadhayn waxay qabtaan waan ogahay haddana waxa weeyaan dadkeeni baynu shaqeynaynaa ajar badan baa inoogu jira. Maxamed Cawaale Daahir Radio Hargeysa magaalada Saylac.